السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدن كلنتي وناسن كون سو دواada movie reaction waxaan isla eegaynaa filimka Munjia ugu dambeynta ii soo gashay inaan daawado mashruuca horarka comedy-ga shactirada badan ganacsigiisa 100 karoor gaaray ayaa miiska noo saaran kadib markii week indigan out-tiga la soo galiyo af Soomaali laga dhigay barta Disney bala hostar la soo galshay kadib aan af Soomaali ku daawanay hadaba saaxiibayaal filimkan Abhay Farma iyo Sharvari waga hogaamiyalka yihiin waa iska dabcan cabsi iyo marka la fiiriyo Supernatural waxyaabaha la dhahayo projectiga marka in badan waxa waa dhankayga 3 xidig iyo baransi isku daahmala 3 star uu yahay laakiin kala barka dambe second half ka dambe sida filimkan oo inaba caadi u ahaana waxa uu siiyay 3 xidig iyo bar uu siiyay Munjia marka waa one time watch way gaar ahaan qaabka creator-ka bahalkaas qaabdarada badan loo sameeyay sheekada second half ka dambe sida strong u tahay doorka Abhay Farma sidoo boqolkiiba kaga run sheegay dabcan inaba caadi ma ahan gabadha Sharvari waga markay shaashada soo gashay tirashada markastaba door adag leedahay waliba second half ka dambe inaba caadi ma ahan Mona Sin oo dabcan jilaysa Abhay Farma wiilka hooyadiisna door ayadana inaba caadina maamada qaadatay calay taal marka Munjia idinkan waa daabateen miisku noo saaran yahay ma lagu daahi karo waa iska dabcan simple movie laakiin qaabka creator-ka loo sameeyay cabsida uu leeyahay shactirada loo sameeyay second half ka dambe ee sheekada ay noqonayso meel aan inaba caadiyan ku bilaabanayso ku dhamaanayso exactly waa iga gaday half ka hor xoogaa sheekadu waa iska simple qaabkii wax walba u socdaan waa la fahmi karaa laakiin markii la gaaro second half ka dambe oo bahalka barnaamijku iskeeno iyo actor-ka is arkaan markaas waxa filimka markaas ku macaana marka halka saac hore dul qaado halka saac dambe awalba filimka ma badna 2 saac iyo wax yar oo socona 2 saac iyo 10 daqiiqo 2 saac ruumiya waa film horror comedy concise way ganacsiga uu sameeyay u qalmaaha uu qalmaa sababta hindi hada sheeko la aana ka jirto sheekooyin maraxi sameeya kan marka sheekadiisa ayadoo Supernatural iska tahay horrorka lagu daray shactirada uu leeyahay music-da heesaha oo gadan iyo qaabka jilinka ee sameeyay jilaayash inaba caadi wali wiilka ani waa iga gadan boqolkiiba ma doorkiisa waa ka baxsaday cabsida soo jilaayo bahalka markay is arkaan sida uu kaaga shactireenayo marka qaar xitaa siinis wuxuu leeyahay inaba caadi ahayn kulli wax yar oo tafaafulna waa lahayd laakiin Munjia dhankayga horror comedy wuxuu ahaa good waa excellent ma ahan marka yaan war idin ku daalinay 3 xidig iyo barasi idinka ay hor daawatan xitaa xogaaba ka yar mashquule daawashadiisa xalay ii soo gashay marka Munjia waa iga gadan laakiin halka saac dambe very strong hadii halka saac hor dambe si loo dhigay halka saac loo dhigi la oo ku bilaaban lahaa qaab oo ka jaraysiinayso waxaan isleeyahay markaas filimkan 4 xidig 4 star waa siin la dhankayga 3 xidig iyo bar waxaan u siiyay second half ka dambe holace jilinka wiilkan waaba iga gadan soo u jilay filimka caadi maahan atirisha Sharvari wagaan screen presence-geeda ma badna laakiin second half ka dambe sida ay saameyn filimka ugu leedahay inaba caadi maahan kulli qof walba ka soo muuqda filimka waa iga gadan laakiin bahalka aniga aad iga yaabshay sida loo sameeyay balaayadaas xun oo qaab darada badan oo jab yarka intuu la eegay cuniga oo bahalka عادي ما دور كاس وحاول دور سفي عن لغة شقي ومركا يدينك هذه كسر عليا منجيا واسد حدك إبرنكي جود موفي واي وعلى داون كرا ولي وجارها قف كجعل فيلم هذا هورر كي سوبرناتشرال كي وحسن عبسد درهم يعني هذا وداون كرا وكل راح يسن كلام مركا قرت وحرمتي 3 xidig imraan kayga qofkii 4 star 4 xidig ibarsi waa ka badbadiyay laakiin it's okay film fiican waa la daawan karo saaxiibayaal intaas aan ka gudbayaa bal markaana soo qaadana sheekooyinka maanta galinka hore jiraan Devara posterka laga soo bandhigay inaba caadi maan NTR wajigaas u jeedin qamajinimada ka muuqato filmkan exactly hal bila ka dhiman daawashadiisa countdown waa bilaabatay mar dhawaan isku diyaaran in la soo bandhigo goosgooska NTR teamka dabcan ku wareegi doona magaalooyinka ugu waaweyn sababtoo waa ban indie movie waa in la tagaa Bombay soo baxaa Jina la tagaa meelo badan la tagaa Bangalore iyo Koji is filmkan loo gado calay taxal marka maanta waa maalintii Devara part 1 iyo posterkaas laga soo bandhigay shalay waxay shaqada soo ilaatay maanta exactly hal bila ka dhiman daawashadiisa the countdown begins marka September the biggest movie oo Telugu soo baxay waa Devara inkastoo September aan ku daafurno toddobaadka dambe good oo Talaba TV hogaamiye ka yahay anaga waxaan ku hadlaynaa afka reer Telugu September filmkooda ugu weyn waa Devara part 1 oo NTR biggest comeback ku sameyn doona tan iyo 2022 xilli RR kadib ninkan shaashada lagu ma arkin after RR wuxuu la imaan doonaa Cortala Siva duu sheekada adkeeyo Saif Calaqani sidoo kale dabcan NTR confrontation ka dhaxmaray la adkeeyo dagaalka xeebaha awoodda doomaha iyo ka talanay meeshaas iyo Jamvi Kapoor door macquul la siiyo iyo waxaan isla sheekada la adkeeyo wax weyn wadada ku soo jira Devara marka hal bila daawashadiis ka dhiman hadal haynta ayuu qayb ka yahay dhinaca kale ciwaanada waxa qayb ka markii aan eegna saaxiibayaal labada megastar laga dambeeyo Mohanlal iyo Mammootty ayaa poster sawir laga soo bandhigay xilli ay wada joogeen producer-ka
Mareykanka Anthony Bramburna wala joogay marba waxa la hadii producerka Anthony Bramburna meesha uu joogo labada megastarna wada imaadeen ma wada shaqeyn doona waa dream collaboration haday dhacdo Times of India wixii la marka sawirkan wuxuu ifafaalo u yahay in labada megastar wada shaqeeyaan hadda Mamouti labada nin qatarsan waqtigan la joogo markii la dhaho sidoo uu shaqeynay iyo howlaha uu haystay iyo guulaha lixaad uu gaaray laakiin combination always qof kasta uu xiiseynaa inuu arko Mamouti iyo Mohanlal wada shaqeynaya maxaa ka xiisa badan noqon doonta marka waxaan sugan doonaa wixii kale ka soo kordha laakiin hadda producerka caanka Anthony Brambur sawirkan uu soo bandhigay curiosity wuxuu abuur hadaleyn xooggan in Malayalam iconiska Mamouti Mohanlal isku keenay kadibna sawir ay wada galeen sawirkan waxa la saaxiibal wuxuu noqonaa mid trending sameeyo collaborative kooda ma dhici doontaa hadii ay dhacdo waxa la wuxuu noqon doonaa biggest movie ever Malayalamka ma kala cabsadaan waa isku imaana wada shaqeynaa dara waxaan ka warqabnaa rag waaweyn waxay ka mid yihiin kuwa taariikhda fanka Hindiya ugu saameynta badan marka bal aan sugano waxa ka soo bixi doona waxba meesha la hadal haya waliba waxa dhahay ninka lagu magacaabo Anthony Brambur 16 sano kadib ayaan arko wuxuu leeyahay ayaan arka saaxiibadeeda oo waqti wada qaadan oo ka wada ma dhici doonta ugu dambeyntii waxa reunion aragna fanka Malayalamka after 16 years in isku soo laabtaan Mohanlal Mamouti film wada sameeyaan ayadoo waxa la saaxiibaa marka la fiirsho Mohanlal iyo Mamouti konton film ka badan wada sameeyaan konton kaas intee keenayna waa samad cor waay sagaashamaadkii iyo sideetamaadkii iyo bilawii qarnigan ugu dambeysay 50 film together ka warna konton film labada wada sameeyeen oo waliba waxa la film caan ah oo aan la iloobi karin saadartay waxa la markii ugu dambeysay directorka lagu magacaabo Ranjith ayaa film wuxuu dhibtay lagu magacaabo Kadal Kudunu Oru Makutu oo 16 sano ka hor la daawaday dhinaca shaqooyinka nimankan rag waxay haystaan shaqooyin kala gooni ah Mamouti wuxuu soo wadaa filmka Bazooka oo dhawaan la daawan doono Mohanlal waxa uu socdo Barus iyo filmka lagu magacaabo Baros iyo sidoo kale Lucifer 2 oo lagu yiro L2 ama Imburam iyo Ram film lagu magacaabo iyo Frubasha iyo kuwa kale kulli labadooda wali waa qaraabanayaan konton film hore u sameeyay waliga kuma fikirin laakiin hadda Malayalamka soo daabaceen oo ina raadeen waa filmadaas markay wada sameeyaan qaab nooc rabana ahaadaan dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa directorka caanka Farhan Akhtar wuxuu ka hadlay sababta Shaaruqan uu kaga baxay filmka Don 3 uusan u sameeynin Farhan Akhtar wuxuu dhaanay SRK saaxiibaan nahay Don 1 iyo Don 2 u sameeyay xitaa wuxuu u maalgeliyay filmkii Ra'iis laakiin wuxuu dhahay saaxiibkay markii aan sheekada qoristeeda bilaabay asiga niyad ku hay filmkii inuu sameeyo sheekada markii aan bilaabay qoraalkeeda wada fariisanay qaabka sheekada u dhigay iyo sidaan rabo markaan wax ugu sheegay waxaan isla ogaanay ugu dambeyntii wuxuu dhahay inuusan Shaaruqan filmkan sameyn karin oo uusan ka soo muuqan karin saadarteed wuxuu dhahay common ground wax guud aniga asaan isku fahmi karno ayaan wada gaari waane saadarteed marka Shaaruqan wuxuu dhahay aniga filmkan bis uga yahay qaabka wax u qoraysay qaabka wax u wadid ima anficin marka qofka raad u dhiib wuxuu dhahay SRK ogolaanshihiisa wuxuu dhahay markii dib bilaabo sheekada inaan mar kale ku laabto qoristeeda anoo maan karan versi ku haay marka wuxuu leeyahay sheekada intaan qoray Shaaruqan muusan iga diinay kadib sheeko qoran versi maan la wadaagin koo wuxuu dhahay SRK qaabkan wax u rabaan isla fahmi waane kadib wuxuu dhahay marka projectiga markaan Don 3 hadda qoray wuxuu dhahay Ranvirsi maanka ku hay ayaan qoray Ranvirsina doorkan wuxuu dhahay perfect ku 100% shaqada Don 3 wuxuu sheegay dabiiqada sanadka inuu bilaabi doono sidoo kalena ay noqon doonto sanadka 2026 ama dhamaadka 2025 Don 3 inuu soo bixi doono waxaan kala soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka saaxiibayaal filmka Game Changer oo Ram Jaran hogaamiyay update ka jiro hadda waxa lagu adkaystay in la daawado Christmas week toddobaadka Christmaska gaar ahaan 20 December sida laga soo xigay producerka caanka Dil Raju hore u sheegay haddana midaas ayuu ku adkaystay xitaa director Shankar asigana wuxuu sheegay Game Changer inuu Christmas soo bixi doono gabi ahaana Shankar wuxuu leeyahay filmkayga ma uusan baaqan Shankar culays badan saaran filmkiisa Indian 2 wuxuu ka noqday film ganacsi ahaan burbure sheekadiisa la iska diido qof kastana uu dhahay Shankar waa u dhamaatay laakiin hadda Shankar wuxuu leeyahay comeback sameyn doona dadka markay daawadaan Game Changer wuxuu dhahay ayaga yaabi doona Kier Advan waxay ka tahay atirisha koowaad SD Soroya wuxuu ka yahay filmkan Ladder Sunil xitaa door muhiim ku leeyahay marka Ram Jaran filmkan waqti badan waa ka cunay laakiin hadda waxa la Christmaska ayuu soo bixi doona sida lagu heshiiyay waxaan kala soo qaadan karnaa saaxiibayaal ciwaanada qaybka gabadha lagu magacaabo Srilela ayaa akhbashay inay sameyso film uu hogaamiyay Siva Karthikeyan markii ugu horeysay taariikh ahaan ay fanka soo geli doonta Tamil Nadu Srilela waxay iska diiday Vijay inay film la sameyso Ajit inay film la sameyso laakiin hadda waxa la gabadha lagu magacaabo Sudha Kongara oo ku caan baxday filmkiisa Raru Batru filmkeeda xigo oo fariinta gangsterka ay la sameynaysaa Siva Karthikeyan filmka markii hore Suuriya sameyn la uu isaga baxay saadarteed hadda waxa lagu soo diray Siva Karthikeyan hogaaminta qaadanay Srilela aydan
jiilasha koowaad ka noqon doontaa dhinaca kalena projectigan waxaa la xitaa waxaa ku jiraan shakhsiyaad kala duwan Dalquur Salmaan iyo Gotham Menon iyo kuwa kaleeto projectigana shaqadiisa way bilaabatay Sri Lanka waxay ku faraxsantahay filimka inay kasoo muuqan doonto shaqooyin kala gabadhan ee gacanta ku haysto waxaa kamid ah filimka Nathan ee la soo wada lagu magacaabo Robin Hood oo Vinky Kudmula uu director ka yahay Ustaad Bhagat Singh waxay la sameynaysaa Pawan Kalyan labadan filimna way haystaa laakiin hadda waxaa la sheegay Siva Karthikeyan sawir la gashay projectigaas oo Sudha Kongare iska leedahay kasoo muuqan doonta dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada qaybkee markii aan eegna saaxiibayaal filimka Street wuxuu u gadmaasay aan caadi ahayn hadal hayntan waxay tahay projectiga amaha kana kadib markii isniintiisii labaad uu keenay lacag gaarayso 20 karoor waxaan ugu wacan fasaxii Hindi ka jira lagu magacaabo Jashmati inuu ka faa'iideystay inkastoo shabakadaha qaar ay leeyihiin 18 karoor barow keenay haddana tiimka filimkan iskala waxay dhaheen 20 karoor ayuu soo xaray isniintiisii koowaad taas oo ay ka dhigantay in hadda projectiga 500 karoor ku socda tiimka filimka marka xawaaran caadi inay ku socdaan lacagta ay soo daabaceen Street wuxuu keenay isniintiisii 20 karoor haddana wuxuu maraa 421.85 karoor waa 422 karoor almost ka dheh saadarta waxay leeyahay marka he is on the way 500 karoor ku gaari lahay all time blockbuster kiis ma jabno waa xogta producer figure-ka aan soo qaadan karno laakiin markii aan eegno tiimka filimkan iskala saaxiibayaal oo box office India ugu horeyso waxay dhaheen 19 karoor keenay ka dhawaad box office India ee Street ee isniintiisii labaad sidoo kale tan hadda wuxuu maray leen ganacsi ahaan markii la eego xogtiisa ay soo daabaceen ilaa iyo hadda waxay leen 400 uu ka tilaabay waana hadda sida rasmiga box office India waxay leen 400 karoor ka tilaabay dhinaca kale tan tiimka filimkan waxay ku sii wadaan sidoo ku gaari lahay 500 iyo 500 karoor marka farqiga aad loo kala badan yahay laakiin waxaan rajaynaynaa dabcan noqon doonto markii ugu dambeysay meel dhaxal isugu imaan doono box office India waxay leeyihiin hadda filimkan 387 karoor maraa weekendigiisii labaad markii loogu daro ganacsi uu sameeyay waxay leeyihiin 406 karoor ayuu maraa tiimka filimkan iskalena 428 karoor ka tilaabsiiyeen 422 karoor aad loo kala badan yahay farqiga marka waa tageen tiimka Street iskale filimku waaba gadmooy maxaa ku wata lacagtaas waalid in dul saarana ayadana questionable oo laga dooda dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa saaxiibayaal gabadha lagu magacaabo Kangana Ranaut ciwaana sameynayso waxay sheegtay in dil loogu hanjabay tan iyo markay bilowday shaqada filimkeeda Emergency markay dhamaystirtay goosgoos ka soo bandhigtay ku dhawaaqda xilliga la daawanay saadarta waxay tiraahdaa booliska amniga ha sugan Kangana waa lagu yaqaan sheekadaas markasta dhahdaa dil lagu hanjabay haddana hadal hayn kale abuurtay filimka Emergency waxay dhahdaa qoliyaha Punjabiga ka xun sheekada in la sameeyo oo zinga ah xilliga Emergency-ga Hindi ka jira Indira Gandhi hogaaminaysana bartamaadkii waxaa la sheegay inay dabcan xasuuq u geystay reer Punjab marka Kangana Ranaut dhahdaa sheeka dhacda ani ka hadlaa filimkan hogaamiyana way ka tahay attention way ka tahay laakiin hadda waxay tiraahdaa fariimo iga soo gaareen dhankaas iyo Punjab iyo Delhi Himachal Pradesh iyo Maharashtra waxay tiraahdaa waxa lagu hanjabay dil booliska waxay ka codsatay marka amnigeed inay sugaan Kangana Ranaut dabcan atirisha kalimaan hadda waa xildhibaanad waxaan islaam marka xisbiga BJP ka tirsantay aweedna amnigeed waa la adkeyn doonaa laakiin ma aha markii ugu horeysay gabadhan ay dhahay dil lagu hanjabo way jirtaa marar kale duun hore u sheegtay in dil lagu hanjabay filimkan 6 September uu soo baxaya Anupam Kher iyo Mahima Jodhary iyo Melinda Suman iyo Shariyas Talben doorar muhiim ah ku leeyihiin waa filim la wada eegi doono Kangana Ranaut director-nimadeeda iyo sida filimkan ay kaga baxsan karto ee dhanka jilinka hogaaminta ee qaadanaysa marka kulay Kangana hadda waxay dil lagu hanjabay haliga warhayo ma aha markii ugu horeysay markii arinkan tiraado waxa le waa mar kale iyo kiis kale cusub ay fureyso mindhaa waxaan isleeyahay booliska ee mashquul rabtaa sida hadda la soo daabacayo kulli aan sugano laakiin hadal haynta ay qayb ka tahay saaxiibayaal barnaamijkan intaas uu nooga egyahay qodobadii aan soo qaadanay midkii si gaar ah ku soo jiitay commentiga ay ka dhiibo xasuusin haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe inoo saar waa inoo kulan dambe hadduu alla idmo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh